waxyaabaha ugu yaabka badan aase waxay ahayd in maaragtay dad Soomaali jooga oo Soomaali ku dhashay oo iskuul kaga baxay oo baraha social media kasoo gudbinayo maaragtay waxyaaba aad u wanaagsan oo maaragtay wadanka wax loogu qaban waxbarashada ay aan leedahay marka luqadii oo Soomaali looga hadlayay oo qurba markii naqla aad ayaan la yaabay marka waxay radaan ka tus waxay ahayd wuxuu yiri investmentiga Soomaali aan ku sameynay waa mid job creation lagu sameynayo youthka securityga integrationka iyo educationka lagu sameeyo oo future bright ah loo sameeyo dhamaantood waa English waxaan arkay waa English laakiin qofkaas weli Soomaali kama soo bixin Soomaali joogay wax fiican waa sameeyay marka maxamed waa ku raaxsanahay waxa kaliya hadda laga baqay waxay tahay boqolka sano soo socda in luqadani meesha ku dhunto social media-hana uu marqaasi ka noqdo ama santii waa gartay ugu dambeyntii gabagabadii baan joognaa hal su'aal baan idin siinaya oo dhex dhigay idinkoo dhan qof walba wuxuu rabaa inuu hal daqiiqo igu soo koobo wixii ugu yaabka badnaa intii uu baraha bulshada ku jiray kala kulmay waxaan ku hormarayaa dalmaryare wallahi horta arrimo badan oo cajiib ah jira waxay ugu yaab badneyd habeen aan xaflad ku lahaa Seattle meel la yiraahdo inay gabadh iska khilaalaadisay oo ay qabsatay oo isku kaydisay marka anigana waan yaabanahay muuqda qof aad weliga arkin oo si fiican kula sheekeysanayo oo ku salaamayo oo maxaan ku markaan weydiiyo ku walaal maxaa dhacayna bal horta waxaan ku inta markii dambe intaan yaab nafta u yaabaan iska qabto waxaan ku walaal idageysa maxaa jira markaas waxay ugu tiri maxaad inkaraysaa waxaan ku inkaraad maana waa ku sida ilaan qof magacayga wata ayaa gabadhan muddo 6 biloodaba la sheekeysanayay oo Facebook kula sheekeysanayay marka qof diyaarsan baad la kulantay waan yaab waxaan ku dhahay hal ugu yiri saaxiibadaha igu ballamiyay xafladan aniga yaab waxaan ku yiri qofka qoray tos baan ku rabto wixii lagu soo qoray markii dambe gabadha iswareysanay aan wada fadhiisanay wixii arkay waxaan ku walaal horta aniga meeyay qofkaas waad iga raali ahaanaysaa beedkii rasmigaana waa kana gabadhii oo hina afka furatay waxay noqotay markii inaan iyada dib u raali geliyo qofkii raadino qofku ahaa oon waa sheekadii ugu yaabka badneed weeyaan oo Facebook ka qabsatay ama social media waa garta shaqo baa lagu qabtay marka qof diyaarsan baa lagu geeyay aad baad u mahadsantahay waxaan siinayaa caalim baan siinayaa caalim adigana wixii kugu yaabka badnaa marka hore waa aad iyo aad baan u mahadinayaa idin salaamaya Soomaali VOA inaad programkan social media deebiin inaad sii wadiin talabaad aniga waxay u yaabnaa gabar Soomaaliyeed oo Sweden degan oo iyadoo weyn Sweden timid oo masiixiyad noqotay oo af Soomaali fiican ku hadasha ayaa waxay aad u caydaa rasuulka Rasul sallallahu iyo diinteen arintaasi waxay ugu noqotay wixii ugu yaabka badnaa ee social media kula kulmo qof dhan oo waalid muslim dhaleen oo diin ka baxday haddana inta la arkay inta ummad adduun ku nool oo aan diinta islaamka haysan waa qofkii kali ah oo iyadoo islaam ah haddana sidii ugu xumeed islaamka u cayda qofkaas waa qof la wada yaqaano waa arrintii ugu yaabka badneed aan ku arkay social media waa gartay Ismaaciil ugu yaabka badnaa inkastoo ay badan yihiin oo hal iyo laba aan lagu soo koobi karin haddana waxaa jira hooyooyin waaweyn oo social media gaar ahaan Facebook aad u soo gala isla markaana maaragtay saacada ku jira iyo hooyooyin kaliya ku akaanin dumar iyo rag labadaba ayaa jira oo soo gala oo waxay rabaan iska sheega basically waxay rabaan ku hadla dhaqankiisu banaa ee Soomaaliga ahaa meesha aan ku jirin kii diinta ay nafaraysa meesha aan ku jirin waxyaabo badan faafiya haddana mid iga siibka yaabka badan taas ay tahay sida Soomaalida waxa xun ay aad ugu raacaan wax wanaaga ama wadaadka sheegaya tafsiirka sheegaya ama wax maartay wax diinta ku saabsan oo camalka suubsan ku saabsan aad arkaysid maartay 15 qol iyo 20 qof waxaan dhameyn maartay ay daba socdaan wax xun kumanaan kun ay daba socdaan taas ayuu yaab ka waa gartay aad baad u mahadsan tahay waxaan siinayaa Cabdinaasir waa mahadsantii dhammaan odayaasha runtii anigu dema soo koobi karo aniga aad baan u isticmaalaa social media-ha mar walbana waa ku jiraa waxyaaba aad u far badan ayaan arkay laakiin haddii aan ku yiraahdo wax aan ka nahay oo aan la yaabo aan arko ilaa iyo berri dambe ayaan u baahanahay Voice of America inay nasiiso laakiin waxyaalaha aan la yaabo waxaa kamid ah dhalinyarada yaryarka ah oo weli aan maaragtay da'dii loogu talagalay wanaaga inaysan gaareenba u eg oo soo gelinaya social media ama YouTube ama Facebook ama Twitter haday ahaataba sawir gabar qaawan oo Soomaali markaas wuxuu kusoo qorayaa bisha subhanallah bal gabadhan eega ayuu kusoo qoraya marka
ereyadaas iyo sawirka waa isqaadan waaya waxaa shock iyo yaab iyo wax aan ka filanaynin. waa gartay aad baad mahadsantihiin. waxaan rabaa dalmar yar inaan kusoo xiro. dalmar, oo bulshada soomaaliyeed aad u marinayso hawada oo ku saabsan adeegsiga baraha bulshada iyo dhaqanka soomaalida in la ilaaliyo. wallahi horta awood ma yihi saaxiibkii colaad awood ma yihi, laakin de waxa weya horta waxaan bulshada soomaliya kula dardaarmi lahaa waxa wanaaga ah inaad mar walba hadday noqoto inaad siisaan iyo hadday noqoto inaad maxaan ku idhahdaye aad adinku sheegtaanba ama aad soo aliftaanba waxa wanaaga inaad raacisaan. qof ku dhiban oo sida maxaan ku idhahdaye dadka waaweyn oo hadda uu sheegayay oo facebooki maaraha looga la-yahay oo dee hooyo ka hadlaysa de sidii sariirtii loo wada seexanayay ninkii naagta u seexanayeen waad dareemi kartaa de waxa weeyaan dhaqankeenii suubanaa oo in muddo ah runtii aan lagu xadgudbin oo sanadahan dambe inay waalidiinta usoo jeedsadaan inay kusoo xadgudbaan waa wax laga weynaado ama macnaha aad iyo aad looga xishoodo. bulshadu inay aad iyo aad dadkaas oo kale in wacyigelin loo sameeyo lagala hadlo. waxaa kaloon dhihi lahaa oon kusoo xiri lahaa anigu waa iga dardaarane Soomaaliye maan danteena gaarno dib u dhisna dalkeeni, maan danteena gaarno dib u dhisna dalkeeni Soomaaliye. thank you. aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. waktiga aad noogu yar, barnaamijkana laguma soo koobi karo. faaqidaad maalin qura la sameeyey ama barnaamij keliya oo hal wakti la sameeyey. v o edana barnaamijyo badan oo kala duwan oo ku saabsan arrimahan bay ka samayn doontaa hadduu alla yihahdo, horena uga samaysay. dhammaantiin waan idin mahad celinayaa sida qiimaha badan ead uga soo qaybgasheen barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka, iyo weliba macluumaadka iyo fikrada aad la wadaagteen bulshada. aad baan idinkaga mahad celinaya. intaasi ayaan kusoo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo jimco walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. barnaamijkeena ayaan toddobaadkan ku eegeynay saameynta adeegsiga baraha bulshada ay ku yeesheen siyaasadda iyo guud ahaan dhaqanka soomaalida. barnaamijka waxaa ka qayb galayay Ismaaciil Daahir Cusmaan oo bartay cilmiga kombiyuutarada kuna jiray qadka telefonka ee magaalada Columbus dalka Mareykanka. sidoo kale qadka telefonka ee Minnesota waxa barnaamijka uga qayb qaatay fanaanka caanka ah Mukhtaar Maxamed Cali oo loo yaqaano Dalmar Yare. waxa kale oo qadka telefonka ee London uga qayb qaatay barnaamijka Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo isna internetka ka bixiya daraasada aqoonta cilmiga kombiyuutarada kana faallooda arrimaha warbaahinta baraha bulshada. qadka dalka Finland magaalada Helsinki waxa ku jiray Maxamed Caalim Nuur oo degan dalkaasi kana faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Tangeeska Afrika. inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.